بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. إلهي baa mahadle tabaaraka wa tacaala. Waxaan insha allahu tacaala ku socon doonaa maalmahan soo socda inaan insha allah wuxuu ilaahay inooga fududeeyo aan wax yar iska xasuusino suuratul xujuraat, suuradda la yiraahdo oo quraanka ku jirta biidin. suuradda waxay halqabsi u noqon doona oo soo celcelin doontaa inay noogu dhawaaqdo magaca yaa ayuhaladiina aamanu ilaa 5 jeer bay soo celcelin doontaa. yaa ayuhaladiina aamanu markay magacaas noogu dhawaaqaysana kuwii ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyay ama kuwii ilaahay maalinta qiyaamo rumeeyay waxa weeyaan waa yeeritaan iyo dhawaaq runtii qurux badan oo macno sameynaya. wuxuu dhihi jiray Cabdullaahi ibn Mas'uud radiyallahu ta'ala anhu, markaad yaa ayuhaladiina aamanu maqashid war hooy dadkii ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyay maalinta qiyaamo iyo rumeeyayow, markaad maqashid wuxuu yiraahdaa waa inaad dhagtaada raaricisaa oo fiirisaa waxa ka dambeeya. ama khayr bay ku amraysaa ama shar bay ka nahinaysaa waxa ka dambeeya. sida hadda ay suuraduba ku bilaaban doonto yaa ayuhaladiina aamanu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih, waxba inoo diidaysaa. marka yaa ayuhaladiina aamanu maxaa ka dambeeyo? diiditaan, waxaa sameynina ka dambeeya. ama waxba ina amraysaa khayr ah. yaa ayuhaladiina aamanu awfuu bilcuquud, waxaa oofiya wax fiican sameeya ayay ina amraysaa. marka waa inaad u dhagraaricisaan buu dhihi jiray Cabdullaahi ibn Mas'uud radiyallahu ta'ala anhu ardaa. xitaa magaca markuu yaa ayuhaladiina aamanu war hooy dadkii ilaahay rumeeyay marka lagugu dhawaaqayo waa macno latiif ah baad dareemaysaa. cidda ku dhawaaqaysa waa rabbul caalamiin, waa alla weyne subxaanahu wa ta'ala. marka wuxuuna kaa rabaa markuu kugu dhawaaqo inaad soo qaabisho, waxa uu kaa reebayna inaad iska dayso, waxa uu maaragtay uu ku farayana inaad qaadatid. marka qofka akhrinaya yaa ayuhaladiina aamanu waa iimaankiisii baa dhaqaaqaya, shucuur iyo ahmiyadda dhawaqani uu leeyahay buu dareemayaa. waa dabcan marka qofka iimaankiisu uu sareeyo, laakiin marka iimaanku uu daciif yahay waxaa dhici kartaba ama uu hash iska yahay, waxaa dhici karta inayna wixii saameyn badan qofkii ku yeelanin sida marar badan aynu dareemayno. marka ay suuraddu iyadoo akhlaaq inagala hadlaysa oo edab inagala hadlaysa, haddana ay markastaba iimaanka inoogu dhawaaqayso oo iimaanka inoogu yeedhayso oo yaa ayuhaladiina aamanu ina leedahay, waxaa dareemaysaa suuraddan yacni iimaanka iyo akhlaaqdu inay yihiin wax isku xidhan oon kala go-aynin. lianna akhlaaqdani waa miro ka mid ah midhaha laga goosto shajaratul iimaan. iimaanka geedkiisa miraha maxay ahayd laga goosto unbay ka mid tahay. ilaahay wuxuu inoo sheegay iimaanku inuu yahay ka shajaratin tayiba, sidii geed wanaagsan oo kale. asluhaa thaabitun wa farcuhaa fi samaa, geedkaasoo salkiisa iyo guntiisuna ay thaabit tahay, laamaheeda iyo faraceeduna uu xagga samada jiro. marka faraceedaas iyo midhaha laga goosanayo unbay ka mid tahay. marka markastoo qofku iimaankiisu ziyaado oo ilaahay inta uu aqoon u leeyahay ay ziyaado oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu si fiican u barto, waa markastoo ay akhlaaqdiisu ziyaadayso, markasta oo cafintiisu ay ziyaadayso, markasta oo maaragtay saamaxaadiisu ay ziyaadayso, markastoo xishoodkiisu uu ziyaadayo, markastoo runtiisu uu ziyaadayso, markasta oo xalaal miradkiisu uu ziyaadayo. akhlaaqdii wanaagsaneed oo dhan markay usii kacayso waa marka uu iimaankiisu uu hagaagsan yahay. marka walaalayaal akhlaaqda wanaagsani waa wax iimaankii ku xidhan. saas darteed buu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo akhlaaqdiisu ay ahayd qur-aanka sida Caaisha sheegayso, ilaahayna uu sheegay inuu dabeecad iyo akhlaaq cadiima ilaahay uu siiyo subxaanahu wa ta'ala u sugnaatay, ayaa haddana ilaahay kasii baryi jiray akhlaaq wanaagsan. oo ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay weydiisan jiray akhlaaq wanaagsan iyo dabeecad wanaagsan, ka magan geli jiray munkaraatul akhlaaq wax la yiraahdo, akhlaaqda teeda xun ee la inkiro, inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay ka magan geli jiray. dadkana uu aad ugu boorin jiray oo intaasoo axaadiis ah oo la soo koobi karin
ودadka maaragtay akhlaaqda wanaagsan uu ku boorin jiray inay la yimaadaan ahmiyada ay leedahayna uu u cadeyn jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam mar la weydiiyay dadku waxa ugu badan ay jannada ku galayaan maxay tahay rasuulkii ilaahayow wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam waa taqwa allah wa husnul khuluq waa alla ka cabsi iyo dabeecad wanaag ama akhlaaq wanaag weeyaan buu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka waxa ugu badan ay jannada ku galayaan sidoo kale nabigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku inuu ku gaadhayo dabeecad wanaagiisa darajada qofka sooman ee haddana habeenkii taagan salaatuleylka inuu ku gaadhayo qofkaas maalintiina taagan habeenkiina taagan maalintiina sooman inuu qofka dabeecada wanaagsani uu ku gaadhayo darajada uu qofkaas u gaadhay dabeecad wanaagiisa uu ku gaadhayo wuxuu kaloo nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka ugu dhow oo uu ugu jecel yahay oo majlis ahaan iyo fadhi ahaanna ugu dhow maalinta qiyaamo inay yihiin dadka akhlaaqda wanaagsan marka aad bay maxay ahayd uu nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka ugu boorin jiray in akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan uu qofku yeesho dhaqanka wanaagsanna wax kala googa ama ahane qofku waa inuu ilaahay dhaqan wanaagsan kula dhaqmo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhaqan wanaagsan kula dhaqmo naftiisa dhaqan wanaagsan uu kula dhaqmo siday suuradan ay qeexi doonto muxuu ahaaye dadkana uu dhaqan wanaagsan kula dhaqmo suuradda xujuraat oo inoo bilaabatay إلهي سبحانه وتعالى وحليها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا سيدان شيغني مغعاس يرتان كاس أيكو بلابانيسا وإلهي ليه هيدتك إلهي الرمييو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وحباها هرمريننا لا تقدموا هرمريننا بين يدي الله إلهي هرتيس ورسوله رسولكيسا وحبانا هرمريننا واتقوا الله ألنا إسكتشرا إن الله ألا سميع ومد مقلد بدن عليم وعلم له سورة وحيكو باللابانيسا إلهي رسولك عليه الصلاة والسلام إن إدب ونعسان لغلا رقم أو إسليبت إيو هجانسا أو أي تهي إن حكمك إلهي يمدك رسولك عليه الصلاة والسلام أو كتابك السنة دي إن أنكو استاغنو oona ilaahay rasuulkiisa waxba kala hormaridani taqadumkan uu ilaahay sheegayo subxaanahu wa tacaala noocyo badan bay leedahay bidcooyinka oo dhan baa soo galaya wax kasta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan jidaynin baa soo galaya ama hadal ha ahaato ama caqiida ha ahaato ama hadal ha ahaato iyo qowl ama ficil ha ahaato inaan ilaahay rasuulkiisa waxba lagala hormarin diintanu maalin bay ay dhamaystirantay oo maxay ahayd ilaahay uu yiraahday al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaam diinan maalinta ay taam noqotay ay kaamil noqotay diintani yaani ilaahay subhanahu wa ta'ala wax kasta oo aan loo baahan yahay ila qiyaami saaca ilaahay kitaabkiisa sunnada buu ku bayaaniyay marka waxa laga wadaa taqadumkan marka uu ilaahay leeyahay ha hormarina oo ha horsoconina ilaahay rasuulkiisa waxa weeye macnaheedu kitaabka iyo sunnada waa inaad daba socotaan inaad idinku ka hormartaan ma ahan inaad wax adigu jeebkaaga wax ka xalaaleysatid ma ahan inaad wax ka xaraamaysa ma ahan wax kasta ilaahay wuxuu ilaahay wax xalaaleeyay un baynu ku raacaynaa waxa uu asagu xaraam ka dhigayna waynu ku raacaynaa ma aha anaga wax jeebkeena inaan kala imaanayno dhaqamada iyo kaljarada iyo qawaaniinta anaga aan dejisanay iyo aqligeena ma aha inaynu aan ku soconno waa inaan ilaahay iyo rasuulka ama kitaabkii sunnada aynu daba soconno oo iyaga raacno oo wax kasta ku raacna iyaga marka idabta ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu horeysa in kula dhaqmayna iyo nabiga maxay tahay inaynu daba soconno oo aan kala hormarin ilaahay rasuulkiisa hortooda ficil ama dhaqan ama hadal ama caqiido ama xukun ama ismaamulid noocay dooniba ha noqotee oo kitaabka iyo sunnada aynu daba soconno oo wax kasto wanaageena aynu ka qaadano kitaabka iyo sunnada